السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلى وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي يسر ولا تعسر علي. waxaan wadaynaa tafsiirkii suurat alfaatixa oo aan dhahnay suuraddan waxaa ku qarsoon asraar aada u fara badan. suuraddan waa suuradda rasuulka caleyhi salaatu wasalaam waa suuradda rasuulka caleyhi salaatu wasalaam uu ku tilmaamay suuradda ugu weyn. magacyo fara badan ay leedahay suuraddan. magacyadaasi faraha badan waxaa ka mid ah alfaatixa, waxaa ka mid ah alxamdu lilah, waxaa ka mid ah ashifaa, waxaa ka mid ah alruqya. haddaan soo dulmaro macaanida alfaatixa waxaa waaye tii suuraddii lagu furfurinayay qur-aanka kariimka iyadaa lagu furfurtaa, iyadaa ugu horeyso. alxamdu lilah waa magacyaday ka mid tahay. macnaheedu waxaa waaye mahad alle ama mahadoo dhan alle ayay u sugan tahay. magacyadeed waxaa ka mid ah ashifaa, suuraddii dawada ahayd. waa dawo waaye, qofka isku daweynaya. haddaad isku tufto, haddaa akhrisato, aada u niyeysato xanuun kasta ku hayo ilaahay inuu kaa qaado, suuraddanaa kugu filan. waxaa ka mid ah magacyada asabca, toddobadii aayadood oo asabca min almathani, waa toddoba aayadood oo soo laalaabato oo qofka mar walba uu akhrinayo. maalintii qofka ugu yaroo ahlu salaadka ah suuraddan wuxuu akhrinayaa 7 jeer. 7 jeer macnaheed waxaa waaye waa 5 waqti waaye salaada inta jeer suuraddan la akhrinayo. suuraddan fadligeeda waxaa ka mid ah maaragtay magacyada ay leedahay oo waaweyn, umulqur'aan iyo umulkitaab, oo macnaha loola jeedo kitaabka qur-aanka oo dhan iyadaa hooyo u ah, kitaabka qur-aanka oo dhan iyadaa dhashay. marka inay dhashayna waxaa caddeen u ah ee dheheen culummada. qur-aanka kariimka wuxuu ka hadlaa qur-aanka wuxuu ka kooban yahay 3 mawduuc. mawduuca kood waxa waa alcaqiida, in la barto kelinimada ilaahay subxaanahu wa tacaala, wixii caqiido la xiriiro, qaybiyaadka iyo waxa qarsoon oo dhan suuradda maaragtay way ka hadlaysaa. oo waxay ku bilaabinaysaa xitaa bismi illaahi araxmaan araxiim. halkaas 3 magac ilaaha ku jirto, allah iyo arraxmaan arraxiim. dan alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin, magacyada ilaahay waxaa ka mid ah alrab way ku jirtaa. waxaa culamada qaar ay kala soo baxeen alxamd, alxamiid ay kala soo baxeen. halkaas waxaa ku haysataa 5 magacyada ilaahay. haddana arraxmaan arraxiim waa la soo celiyey. kadib maaliki yowmiddiin, halkan almaalik magacyada ilaahay waa 6. markaasi kadib haddana culummada qaarkood waxay kala baxeen iyaaka nacbudu, ilaahu adiga keliyaan ku caabudaynaa. halkan iyadana waxay kala baxeen ilaahay, cibaadada ilaahay keliya la caabudayo. alilaah ayaa halkaasi micnaheeda ay tahay si aan toos ahayn. magaca 7aad wuxuu noqonayaa alilaah. wa iyaaka nastaciin, ilaahay subxaana wa tacaala markaa wax weydiisanaysid keliya magacaasi meesha ka soo baxay waxaa waaye magaca assamad, kii wax la weydiisanayo oo xaajooyinka gudaya meeshuu ku qarsoon yahay. halkaas waxaa ku haysataa 8. haddana ihdina asiraat almustaqiim, halkaas waxaa ku jiro alhaadi, waa 9 waaye. macnaha aleyhi waa xanuuninayay, marka hanuunka isagaa la weydiistaa. waxaa leedahay ihdina siraat almustaqiim siraat aladiina ancamta calayhim gayri almaqduubi calayhim wala adaalliin. halkaana waxaa laga faa'iidaysanayaa marka aada leedahay ilaahow iga ilaali waddadii ay yuhuudda mareen iyo waddada masiixiyiinta ay mareen. yuhuuddana waddo care ilaahay keenaysay mareen oo ilaahay khilaafi jireen in badan. markaasi waxaad weydiisanaysaa ilaahay inuu ku sugo oo uu ku xifdiyo.
halkaasi marka waxaa ku qarsoon magaciisa oo tobanaad oo ah alhaadi. hadduu sagaalaad ahaa kan tobanaad wuxuu noqonayaa alxafiid, kii wax ilaalinaya. marka ilaahay subxaana wa tacaala inaad weydiisato inuu ku ilaaliyo, uu kaa ilaaliyo wadooyinka khaldan. suuraddan la-aanteeda waa suuradda keliya oo muslimiinta oo dhan ay wada xifdisan yihiin, sababtoo ah la-aanteeda salaada ma gudayso. nabiga calayhi salaatu wasalaam xadiis ayaa wuxuu ku yidhi laa salaata liman laa yaqra' bifaatixati alkitaab. xadiis oo saxaabiga cubaada ibnu saamit rasuulku ka wariyey ayaa wuxuu leeyahay salaad ma ansaxayso haddii aan faatixo aan la akrin. waxaa jirto saxaabi oo rasuulka alay slam uu ku dul akhriyey suuraddan radia allahu tacaala canhu. saxaabigaasi uu ku dul akhriyey waxay tusinaysaa dhehen culummada suuraddan iyo weynankeeda. rasuulka calay salaam suuradda keliya uu ku dhaartay inay tahay suuradda ugu weyn qur-aanka, oo rasuulku yidhi calayhi salatu wasalaam suurad noocan oo kalea laguma soo dejin ama ilaahay subxaana wa tacaala ma dhex dhigin, towraadna ma dhex dhigin, injiilna ma dhex dhigin, zabuurna ma dhex dhigin. wuxuu dhex dhigay kitaabka alfurqaan oo ah qur-aanka kariimka ah. suuraddaasi waa suuradda alfaatixa, waana suurad aada u weyn oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu ku tilmaamay alqur'aan alcadiim, qur-aankii weynaa. suuraddan fadligeed waxaa ka mid ah nebiga wuxuu ka sheekeeyey calayhi salaatu wasalaam xadiis oo u dhahaya rasuulka calayhi salatu wasalaam malag ayaa soo degay maalin maalmaha ka mid ah. nabiga calayhi salatu wasalaam wuxuu sheegay malagaasi hadda ka hor inuusan soo degin, uuna la soo degay qur-aanka qeyb ka mid ah. qeybtaasi qur-aanka ka mid ah oo malagaasi uu soo dejiyey rasuulku u akhriyey waxay ahayd suuratu alfaatixa ayuu akhriyey. wuxuu yidhi alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin ayuu malagan soo dejiyey. hiya asabcu almathaniy macnaha ama asabcu min almathani waa 7 aayadood oo soo noqnoqonaysa akhrinteeda. waalqur'aan alcadiim alladii uutiitu wuxuu yidhi waa qur'aankii weynaa oo la isiiyey. halkan marka waxaan ka fahmnay faatixada inay tahay qur'aan aada u weyn oo qofka mu'minka la rabo inuu ilaaliyo oo uu fahmo asraarteeda iyo axkaamta iyo xikam wixii ku qarsoon. marka waqti badan nagu qaadan doontaa in la fahmo suuraddan. nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi suuraddan rasuulka calayhi salatu wasalaam wuxuu leeyahay ilaahay waa xadiis alqudsi ayaa wuxuu yidhi qasamtu salaada oo addoonka oo tukanaya. fursaddan faa'iidadeeda waxaa helaya oo keliya dadka salaada tukado. dadka taarigu salaad oo salaad aan shaqo ku lahayn oo adduunya maaragtay ku mashquulay wax ay ka faa'iidayaan ma lahan adduunkan. sidaa daraaddeed ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu noo sheegay faa'iidada salaada halkan ee faa'iidada faatixada. ilaahay wuxuu yidhi subxaana wa tacaala qasamtu asalaa salaada waxaan u qeybiyey beynii wa beyna cabdii, aniga iyo addoonkeyga nisfayni 2 qeyb. ilaahay subxana wa taala 2 nus aan u kala qeybsanay, qeybna addoonkeyga leh qeybna anaa leh. walicabdii maa sa'al, addoonkeyga wuxuu weydiistou qaadanayaa. markaasaa fa idaa qaala alcabdu addoonku markuu dhaho markuu faatixadu akhrinayo oo salaada a ku jirto adoo gacmahaaga kuu saaran xabadka markaad dhahdo alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin
markaa dhahdo ilaahay subxaana wa tacaala wuu kuu jawaabaya wuxuu leeyahay xamadanii cabdii xamadanii cabdii maxaa macnaheeda addoonkeygu waa igu mahad celiyey ka waran ilaaha kula hadlayo so ma jeceshaa ilahay inuu kula hadlo ma jeceshahay 17 jeer ilaahay inuu ku dhaho waad mahadsan tahay mahad celinta aad igu mahad celisay waxaa suurtagala inaad dhahdo ma maqlayo run way ma maqlaysid laakiin ilaahay asaa noo sheegay rasuulkaa noo soo gudbiyey calayhi salaatu wasalaam inuu nala hadlayo oo uu dhahay xamadanii cabdii addoonkeygu waa igu mahad celiya addoonka markuu dhaho الرحمن الحمد لله رب العالمين maxaa ku xiga الرحمن الرحيم markuu addoonka uu dhaho ilaahay subxaanaه wa tacaala muxuu leeyahay أثنى علي cabdii waxaa i ammaanay addoonkeygii ilaahay subxaanaه wa tacaala markii aa xusaysid khaasatan magacyadiisa markaad tilmaamaysid waa ammaan ilaahay subxaanaه wa tacaala wuu jecel yahay addoonkiisa in allihii abuurtay uu ammaano waidaa qaala hadduu addoonku uu yidhaahdo markuu addoonku uu akhriyo maaliki yowmi ddiin maaliki yowmi ddiin boqolka maalinta qiyaamaha ilaahay subxaana wa tacala wuxuu leeyahay wuu jawaabayaa majadanii cabdii addoonkeyga wuu isharfay addoonkeyga wuxuu dhahay aakhiro maamulkeeda ilaahay gacantiisu ku jiraa inkastooba adduunyo ilaahay maamulkiisa adduun oo dhan ilaahay maamulkiisa uu ku hoos jiro haddana aakhiro si gooniya loo wada arkaya laakiin adduunka awoodo badanaa jiro oo hadhadlo oo dhaho anaga awood badan mar kalena riwaayad kale waxay leedahay fawada ilaya cabdii addoonkeyga arrinkiisa anuu ii dhiibtay ilaahay saasuu leeyahay subxaana wa tacaala haddii faatixada aad soo gaarto iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin adiga keligaagaan ku caabudayaa adiga keligaaga ayaan ku weydiisanayaa kaalmo ilahi wuxuu leeyahay haadaa baynii wa bayna cabdii tan aniga addoonkeyga ee naga dhexaysa markaasaa ilahi wuxuu leeyahay walicabdii maa sa'al addoonkeyga wuxuu weydiistuu helayaa kaalmo maa weydiisatay kaalmada waa helaysaa marka hanuun maa weydiisatay waa helaysaa fiir aayad ku xigto markaa dhahdo ihdina asiraata almustaqiim ilaahu waddada toosa nagu toosa صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين marka aayaddaas akhriso ilaah wuxuu leeyahay haadaa licabdii walicabdii maa sa'al tan addoonkeygaa leh addoonkeyga wuxuu weydiisa waan siinaya maxaa weydiisanaysaa marka aayadda dhammaadkeeda inuu ilaahay ku hanuuniyo maxaa weydiisanaysaa aayadda dhammaadkeeda ilaahay inuu kaa ilaaliyo waddooyinka oo khaladka ah adduunka maanta kumanaan waddo oo khaladaa jira oo dadka ay aadaan ama ay raadiyaan adiga haddii faatixada aad ku akhriso niyad ah ilaahay inuu ku xifdiyo waddooyinkaasi faraha badan ee khaldan ilaahay subxaana wa tacala wuu kaa ilaalinaya waddooyinkaasi faraha badan ilahay wuu kaa ilaalinaya ilaahay wuxuu kugu toosinayaa hal waddo oo keliya oo ah alislaam asiraat almustaqiim suuraddan aan ka soo sheekeynay qofka markuu akhristo inta magac ay suuradda leedahay ay leedahay waxa ay ka hadlayso uu qofka helaya dunyadaas u akhristo mathalan ashaafi suuradda waa dawo waayo haddii aad u akhrisato ilaahay inuu caafimaad kugu siiyo suuratulfaatixa culamada qaar waxay dhahaan 10 jeer maalin kasta haddaa akhrisato haddaad salaada tukatana 17 jeer waa akhrisataa sababta salaada ku tukanaysaa suuraddan xataa waa inaan laga tegin xataa salaada hadday tahay hadduu imaamka uu akhriyana in la akhristo haddii imaamka uu hoos u akhriyana in hoos loo akhristo
waxay dhaheen culummada qofkii suurat alfaatixa akhristo waman waadaba calaa qiraa'ati suurati alfaatixa 40 mara bacda intihaa min salaati subx salaada subax kadib qofkii 40 jeer akhrista suuratu alfaatixa sifan u dhegeysa halkaan wa qabla duhurka ka hor qofkii akhrista 40 jeer أنعم الله عليه بالرزق الكثير والخير الوفير ورزقه بالذرية الصالحة من الذكور والإناث. حلو الجدا قفكي سورة فاتحة 40 جار صلاة الصبح كدب أخرستها، أما صلاة الظهر كهر أخرستها 40 جار أو شقادون شقاد سلاح واسينايا oo business raba inuu sameeyo businesskaas ilaahay waa waafajinaya oo leh dan dhaqaale ilaahay subxaana wa tacaala waafajinaya wuxuuna ka dhigayaa kuwa ilaahay subxaana wa tacaala waafajiyey waxay jeclaayeen oo khayrka ahaa khaasatan risqiga. lidaalika culummadu waxay dhahaan qofkii raba in ilaahay subxaana wa tacaala arrimihiisa uu u fudaydiyo 3 jeer suuradda faatixada ha akhriyo. waxay leeyihin culummada man qaala bacda alintihaa min qiraa'ati suurati alfaatixa allahuma ajmac baynii wa bayna xaajatii 3 maraati istajaaba allahu lahu waqadaa jamiica xawaa'ija. suurat alfaatixa markaad dhamayso haddaad gacanta taagto oo 3 jeer aad dhahda ilaahow aniga iyo waxaan raadinayo oo muraad ah nawada kulmi, haddaad 3 jeer dhahdo ilaahay subxaana wa tacaala muraadkaadu uu kuu sahlaya, weli dhammaan waxaa raadinaysa kuu sahlaya. waa suurad asraar badan ka buuxda, waa suurad asraar fara badan ka buuxda. tirada oo suuradan la akrinaya culummada isku khilaafeen. khilaafkaas waxaa keenay waa ijtihaad. ijtihaad waxa waaye waxay culummada dadaal ahaan ay rabaan ama ay arkoodeen iyaga inay munaasab tahay in lagu celceliyo. maalan culamo qaar ayaa waxay dhahdeen qofkii si joogto ah 100 jeer suurat alfaatixa maalin kasta uu akhriyo wixii muraad uu leeyahay maalintaas ilaah waa siinaya. culamo qaar waxay yidhaahdeen qofkii suurat alfaatixa waxaan ujeedaa qofka suurat alfaatixa akhrista salaada subax kadib 21 jeer, salaada duhur kadib 22 jeer, salaada casirka kadib 23, salaada maqribka 24. isku geey marka 21 salaada subax, 22 salaada duhur waa 43, 23 waa 40 waa waxaan ujeedaa 66. salaada maqrib kadibna 24. 66 haddaad ku darto 4 waa 70, 20 ku dar waa 90. isku geegeynta 90 ay noqonaysaa. culamo qaarkood waxay yidhahdeen qofkii akhriyaa suurat alfaatixa iyo suurat alikhlaas 3 jeer maalin kasta qofkaasi wixii danihiisa ilaahay subxaana wa tacaala u gudaya. isku soo celceli. culamadu waxay yidhahdeen suuraddan suurat alfaatixa waxay ka mid tahay suuradaha asxaabta isaga ilaalin jireen wixii dhibaya, waxayna ka soo qaateen ninkii bahalka qaniinay oo asxaabta qaar ka mida suurat alfaatixa ay ku tufeen qaniiyadii iyo suntii bahalkaasi u watay ilaahay subxana wa taala u ka shaafiyey. sidaas daraaddeed waxay dhaheen waxay ka mid tahay suuradaha asxaabta ay u isticmaaleen alruqya alsharciya in la isku tufo. suuradaha
والنبي عليه الصلاة والسلام وأقل هذا قفك سورة الفاتحة مالك كستو وأخرسته إلهي وحوك كوريا كو إشا جنجا إيو إشا دادك إيو حسدك جنجا إيو حسدك دادك أولا لذلك علماء حاليا سورة القرآن كورني أرورسي لذلك حالما التأوى القرآن كورن أخرنا أيوه ده سورة ولا أخرسه وقدمينتي سورة علماء حيل هذين قفكي لما سورة إنه بركاستو وحافع إنه كعل عليو سيدة صلاة اللي كعل عليو كلا واختيار كلا إنه كعل عليو سافيها سورة حنقول قلنا وقت غير نوحري تفسيرك آيات كستو iyo tafsiirkaasi aayad kasto oo aan tafsiirayno aayad kasto aan akhrinayno tafsiirkeeda aayad kasta waxaan maaragtay aan u faahfaahinaynaa si loo fahmo aayadaasi macaanida ku urursan iyo wixii xikam ah oo ku urursan iyo wixii axkaam ah oo ku urursan حكى بالعابنا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله مقع إلهي سبحانه وتعالى الرحمن الذي نحريت سجود هيد الرحيم الذي نحريت سيقاس كهيد النبي قحول عليه الصلاة والسلام أخرست بسم الله الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى وحو أخذ بركو إيالايا ولكا الشقاء بالعابي صداره بسم الله الرحمن الرحيم شقاء سلاح وبركانايا راشين مركا عنيست أو مركا عبيتان حلال عبيست قال هذا بسم الله الرحمن الرحيم راشين كان بركو إيالنا عبيتان كاسن بركو إيالنا محلول جدا بركو إيالنا كو جركا أو قاريا waxaa cabtay ama waxaa cuntay ay bisinkaa qabatay laba waxaa kaloo ilaahay subxaanahu wa tacaala baraka qofku ilaahay barakeenayaa wuxuu raban ilaahay uu barakeenaya maalan waxaad u akhrisatay bismi illaahi araxmaani iraxiim ka soo qaad raashiin aada cunaysay raashinkaas ilaahay wuu barakeenayaa adiga cunaya ilaahay wuu barakeenayaa markaas waxaa dhacayso inuu ku deeqo waxaa kaloo dhacayso inuu ku deeqo kaliya maahee waxaa dhacayso raashiinkaasi wixii ku qarsoon oo khayra ilahay inuu ku waafajiyo maalan bismi illahi raxmaan raxiim maadaama aad dhahday ilaahay energy badan inuu ku siiyo raashinka aad cuntay maadaama bismi illahi raxmaan raxiim aad dhahday wax alla wixii dhib ah oo raashinkaasi ku qarsoon adiga aadan ogeyn ilaahay uu kaa celinaya hadduu sun yahay xitaa ilaahay uu kaa celinaya qiso waxaa jirta cajiib badan oo nin caalima aan ka maqlay bismi illaahi raxmaan iraxiim culayska ay leedahay iyo fawaa'idda ay leedahay wuxuu yidhi waxaa jiri jiray ilmo oo meel ku ciyaari jiray xaafaddaas muslimiin aan u badneed laakiin hal ilmo oo yahuudi ah oo 5 jir ah gabar yar oo 5 jir ah ilmahaas la ciyaari jirtay ilmahaas marka waa ilmo waalidiintooda diinta aad u bara oo ku tarbiyeeya marka markay rabaan inay wax cunaanba waxay ku bilaabi jireen bismi illaahi araxmaani araxiim maalin maalmaha ka mid ah gabadhaan marka ilmahaas la dhex nooshahay marka maalin kasta guriga markay timaado ay wax cunaysa waxaa ku bilaabaa bismi illaahi araxmaani araxiim wax walbay cunayso wax walba ay bilaabayso wax walba ay cabayso waalidkiiya markaasi xoogaa ka xumaaday waxaa dhahday jooji muslim ma tihide jooji waxaan aad ku hadlaysay gabadhii yaraad waxay dhahday ma joojinayo ilmihii aan asxaabta ahayn way dhahaan maalin kasto marka wax la cunayo marka wax la cabayo marka ii fasax
calaa kulli xaal waxaa dhacday gabadhii yareed ma joojin, marka maamadii waa xanaaqday, gabadhii ee dhashay sun usoo gaday. waa xasadnimada marka qaarkooda ilmahaagay ku hilmaansiinaysaa. xasadkay u qabta islaamka iyo diinta islaamka waxay halmaantay gabadha inay gabadeeda tahay. sunay usoo gaday, marka sunta waxaa ku qoran daqiiqad qofkii cuna wuu dhacaya wuuna dhimanaya. suntii meesha ku qorneed ayay ugu dartay raashinka. raashinka markay cuntay waxay dhahday caloosha laga hayaa. waxaan ula jeedaa raallada dib ugu noqonaya. maamada waa qofka dareentay xanuunka. gabadha markay raashinka cuntay waxaa horta maamadii waxay soo gaday sun. waxay ahayd waqti quraac. suntii ay soo gaday waxay ku dartay quraacdii ilmaha, iyadoo ilmaha ka qarisay anaa gabadheedii. gabadhii quraacda markay bilowday inay cunto maamada waa fiirinaysay. marka sunta waxaa ku taalo noole haddii afka uu u galo daqiiqad gudaheeda noolahaasi wuu dhimanaya. gabadhii raashinkay waday daqiiqad way dhaaftay, tii labaad way dhaaftay, saddexaad waa dhaaftay, tii afraad, tii shan iyadoo maraysa joojisay. jooji raashinka waxbaa ku jira. markaas kadib way ka qaaday. markay ka qaaday raashinka fiirisay way ka shakaysay. waxay ka shakaysay inay suntii ay ku dartay inuu raashin ka gaaraya in kale. markaasay qabatay weli dhamisay. ilan iyada bismillahi ma dhihin. laakiin gabadha yareed markii raashinkay cunaysay inkastoo sun uu lahaa bismillaahi araxmaani iraxiim ay ku bilowday. gabadhan maamadan markay dhahdo raashinka tijaabi oo si fiican afkay u gashatay, wax aan dhadhan sax ahaynay dareentay. ugu dambeyntii maamadii dhulkay dhacday. isla markii waa la qaaday, way dhimatay. suntii ugu talagashay gabadheeda walaa yaxiiqu almakru asayi ilaa biahlihi. waa aayad qur'aan. haddaad dhagar samayso aday kugu soo noqonaysaa dhagartaas. ilaaha dhahay dhagaray gabadheeda u samaysay inay dishay rabtay, iyadaa ku dhimatay. marka maamadeeda markay dhimatay, gabadhii yareed meeshay joogtay way aragtay maamadeedii. markaasaa waxaa la yidhi hooyada sunay cuntay way ku dhimatay. markaas waxay dhahday weelka ee wax ku cunaysay ee ku dhimatay aniga wax badanaan ka cunay. gabadhii dhakhtaraa loola orday, jirkeeda waxaa laga baaray sun oo maamada ku dhimatay inay ku jirto in kale waa laga waayay. laakiin gabadheed waxay dhahday waxaan dhahay bismillaahi raxmaani raxiim intaanan cunin ka hor. halkaasaa marka halkii kuwii qaraabada ahaa dhexeen gabadhan yar waxaa badbaadiyey qoolka bismillaahi raxmaani raxiim. marka meesha ayaan ku joojinaynaa. bismillaahi raxmaani raxiim wax walba markaad ku bilowdo saddex faa'iido oo waaweyn aad helaysaa. kow, wixii aad ku bilowday barakuu yeelanaya. hadduu business yahay barakuu yeelanaya. haddii raashin uu yahay raashinkaas barakuu yeelanaya. waa kow. laba, bismillaahi raxmaani raxiim dhihid aad dhahda darteeda ilaahay wuxuu ku waafajinayaa towfiiqda waxaad u dhahday bismillahi raxmaan raxiim. مثلا كسوقات كله بزنس يا بلودي بسم الله الرحمن الرحيم كو بلودي إله بزنس إنه بركة يا ما ها وحكوا فجنا يا بزنس كاسي صاد أولي بان لها وبزنس أسترتي سوا والتوفيق إله كوا فجنا من دعاء بركة وقفوا بركانا من دعاء التوفيق إله كوا فجنا من استحام حواي حفظ إله سبحانه وتعالى قفك بسم الله الرحمن الرحيم رحي إله وحفظنا وحك حفظنا وحو بسم الله الرحمن الرحيم ودهي وحي نبقى كإيمان الله. مثلا بسم الله الرحمن الرحيم راشين أي واحد كل لوضي بسم الله الرحمن الرحيم راشين كاسي بسم الله الرحمن الرحيم أتكب لوضي
dhib jirkaaga dhibayo ama naftaada kama imaanayo waxaa teedayo bismi illaahi raxmaan raxiim. marka suuraddan sidaasay u culus tahay, weligaa ha ka tegin bismi illahi raxmaan raxiim. haddaad halmaanto bismi illahi raxmaan raxiim, nebiga waxaa laga soo wariyey qofkii inuu dhahayo bismi illaahi calaa awalihi wa aakhirihi. waa haddaa halmaanto. haddaa saas dhahdo barakadiia soo noqonayso, ilaaladiia soo noqonayso, tawfiiqdia soo noqonayso. aquulu qowli haadaa wassalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu. maanta meeshaan ku joojinaynaa, wixii su-aalahaan furaynaa insha allah.